kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa xalinta khilaafaadka dhismaha golaha deegaanka degmada Jowhar oo ay garwadeen ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle. Inta kulanka uu socday ayaa odayaasha soo xulaya xubnaha golaha deegaanka waxay isweydaarsadeen aragtiyo ku saabsan dadajinta dhismaha golaha deegaanka oo 30 sano kadib ay yeelan doonto caasimadda Hirshabelle ee Jowhar. markaan waa ka go'aanta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose inay arrimahan ay dhistaa ka go'an. waxaan rabnaa marka odayaasha dhaqanka oo ka soo jeedo beelahan hadda oo awood qaybsiga kula meeshaan in wasaaradda la fududeeyo oo ka odayahan aan la fududeyno oo xubnahaas 27 ka oo hadda in la gudagal loogu talagalay arrimahaas aan fududeyno annaga aan ku heshiino si wanaagsan anagoo ku heshiinay oo gacmaha isaysanno oo raalli maamulka aan soo gudbino annagana aan isku dhimrino saasaa la rabaa waxaan dhisayno waxaan wada leenahay wax uu nin leeyahay ma aha laakiin waxa loo baahan yahay idoo aan wada leenahay haddana yaa mudan in aysan dhiraan marka waxaan leeyahay haddii ay meesha ka soo baxdo yaa mudan haddii ay meesha ka soo baxdo waa soo dhawaanaysaa. agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle Maxamed Macalin Xasan Kulmiye ayaa sheegay in meel dawlad la soo gaaray dhawaana la soo dhisi doono golaha deegaanka degmada Jowhar. aragti wadaag la rabo in loo ururiyo talada ugu habboon iyo hanaanka ugu habboon lagu wajihi karo hawshaas iyada gabagabeynteeda amaba dhamaystirkii dhismaha golaha deegaanka in la gabagabeeyo. waxaan rabnaa in odayaasha dhaqanka nala fadhiyo ay ku biiriyaan aragtidooda saliimka ah sida ay ila tahay sida ay ku fiican tahay sida ay ku habboon tahay hawshaas lagu geli karo ama lagu soo gunaanudi karo caqabadaha jiro iyo fursadaha la haysto si guud marka aragti wadaag waaye waxaan rajaynayaa in kulan mirdhala u noqdo waa aaminsanahay in qof kasta oo meeshaan fadhiso ay xog badan ka hayso hanaankii dhismaha golaha deegaanka degmada Jowhar oo muddo badan ay soo joogtay 4 sano 3 sano howl soo socotay ay tahay gabagabadii ugu dambeysay la maraayo oo la go'aamiyay in hawshan la soo gunaanado maadaama sida horanadii ku sheegayba inta badan hawshan mashaariicda la xiriirtay oo ahayd dhismaha golaha deegaanka deegaanada kale Soomaalida kale laga fuliyay. diyaar garowga dhismaha golaha deegaanka magaalada Jowhar ayaa si aad ah looga dareemayaa caasimadda Hirshabelle iyadoona mashquul aad u weyn laga dareemayo goobaha bulshada ay isugu yimaadeen. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.